وعكرم ليها حافظة إلهي سبحانه وتعالى يا إذن نعمي مساجد بو إلا صوت دونتي حقيقة ماشى مساجد لقد شيء وميل آدي آد أقوبة هاي المسجد بالله من الشيطان الرجيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. xaflad seher sare ah loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay mid ka mid ah masaajidda ku yaala degmada Beled Xaawe ee gobolka Gedo. xafladan ayaa ujeedkeedu ahaa xarig jarka masjidkan cusub oo dhismihiisu maalgeliyay Dr. Sheekh Yuusuf Maxamed Xuseen oo ku sugan dalka dibadiisa. sheekha ayaa masjidkani u dhisay una waqfay hooyadii isaga dhashay oo ahayd hooyo caan ka ah degmada Beled Xaawe taasi oo lagu magacaabi jiray Khadija Aadan Barre kuna magac dheereed Maama Bururtooy ayadoona ku takhasustay cilmiga umulisinimada. hooyo Khadijo Alle ha u naxariistay ayuu eebbaweyne oofsaday sanadkii tagay ee 2021 bishiisii tobnaad. dhanka kale masjidka ayaa loogu magac daray Masjid Khadija isagoona ku yaala xaafadda Tuulo Jibriil oo ah deegaan istiraatiiji ah dadka xaafaddaasina ay yihiin kuwa baahi weyn u qabay in masjid looga dhiso xaafadooda. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay culamaa u diinka salaadiinta iyo mas'uuliyiintii kale ee ka soo qaybgalay xafladan. maanta waxa weeyaan maalin maaragtay isniina taariikhduna ay tahay 15 bishii 8 2022 waxaan joognaa masjidka Khadija degmada Beled Xaawe masaajideeda kamid ah oo mar dhow la dhisay xaflad lagu daahfurayo ayaan u fadhinaa. masjidkan waxaa dhisay ilaahay ha barakeeyo al-akh Dr. Sheekh Yuusuf Maxamed Xuseen wuxuuna u dhisay iyo wiilasha kale waxaa loo dhisay Maama Khadija ilaahay ha barakeeyo raxmad ilaahay Allah ka waraabiyo oo culimo badan noo dhaaftay دكتورك iyo shaqadan Axmed Kalmash Alankaar iyo Sheekh Abdalla iyo rag iyo wiilal iyo gabdho fara badan oo khayr loo dhaaftay ayaa loo waqfay masjidka runtii waa sadaqa jaariya waa farxad aan la soo koobi karin waalidkii u dhisay masjid intaan la eego quruxdan qabo ayada ilaahay ha naxariisto waa ducaysneed awlaadana ducay ku dhashay culimada ugu qiimaha badan oo arada joogtay dhashay alxamdulillah qof haddii intuu dhinto wax micno leh ka tago faa'iido weeye waxaan leenahay casabadii ducaysneed oo ayada ay dhasho soo korisay oo wada culimada ah oo doctorku uu weyn yahay waxaan leenahay ducada waalidka iyo taanadaba Allah siiyo Allah barakeeyo kuwii cirib reeba Allah ka dhigo kuwii hooyadood say ugu ducaysteen ayagana awlaadooda baari Allah ugu dhigo oo sidaas ay ugu ducaystaan Allah ka dhigo. masjidka Masjid Khadija la yiraahdaa waa saan ku warbixinay marka waxaana dhisay Sheekh Yuusuf Maxamed Xuseen oo maaragtay runtii ay dhashay Khadija Aadan ay dhashay Maama Khadija ay dhashay marka saa awgeed marka bidillah azza wa jal isaga ilaahay subhanahu wa ta'ala abaal siiyo waxaan markaa ku khatimaynaa bidillah azza wa jal mahadnaqayno marka hore Sheekh Yuusuf Maxamed Xuseen oo xaafadan oo baahi weyn ay ka jirtay masjidka halka uu dhisay isagoo u niyooday waqaf nagu dhigo hooyadii waxaan sidoo kale halkaan ugu mahadnaqaynaa culamaa diinka nabadoonada talabatul cilmi ardada masaajidii xirta halka loogu yimid la soo ajiib ayagana way mahadsan yihiin jazaakumullahu khayran. خاصة شيخ يوسف محمد حسين وهويدي مام خديجة وأقف خير بدن ولقى يقال دقمة بلحة ودقمة اللغبة وصمفالك آد وديريسي خاصة هويوينك آد تاكلين جرتي قعون وقيسين جرتي قسم النساء والولادة إله سبحانه وتعالى ميزان كذا خمسارة صدقة جارية الله وقدقه إله سبحانه وتعالى وقدقه قبل كذا روض من رياض الجنة إله سبحانه وتعالى وبركة أولادي كتكتي
iyana waxaan leeyahay awlaadda kuwa awlaadooda iyagana ay sadaqa jaariya usoo bixiyaan allah jalla wacala ka dhigo. waxaan ku kulansannahay masjid khadiija oo loo dhisay maama khadiija oo loo waqfay raxmatullaahi calayha raxmatan waasica waqafara allahu laha. ilaahay subxaanahu wa tacaala maamadaas ha u naxariisto, allahana u dembi dhaafa, maadaama masjidka magaceeda lagu waqfay ee loo waqfiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala ha gaarsiiyo sadaqatu jaariyana allaha oga dhiga. rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi qofka marka uu dhinto camalkiisa waa go-ayaa saddex mooye. saddexdaasi waxaa ka mid ah sadaqa jaariya, qofka waalidkiis wax u sadaqeeyo oo weliba sadaqa jaariya sida masjid inuu dhiso, inuu madaraso u dhiso oo u waqfiya, ceel inuu u qado way gaaraysaa, waana sadaqa jaariya ayay u noqonaysaa. sheekh doctor yuusuf maxamed xuseen waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku barakeeya, cilmigaada allaha kuu barakeeya, ra'yiga wanaagsan ee masjidka aad ku aasaastay allaha ka aqbala, ilaahay subxaanahu wa tacaala ka ajarsiiya. kii ay carruurtiisa masaajid u soo dhisaan oo wax u soo waqfaanna allaha ka dhigo. halkanuu leeyahay xaafadda ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa idiin nicmeeyo, masaajid buu ila soo doontay. xaqiiqatan meesha masaajidka laga dhisay waa meel aad iyo aad ugu baahnayd masjid. bannaanka baan soo fiiri, waa soo wareegay, xaafaddan ilaahay baa la soo doonay masjid si wanaagsan loo dhisay oo qiimo wanaagsan oo si fiican loo dhisay weeye masaajidka masjidu khadiija. ilaahay subxaanahu wa tacaala allaha ka aqbala miisaan xasanaadka allaha u saara. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan isugu kaa keenay masjidkan barakaysan masjidu khadiija. sida akhyaarta igu horreysay bay ka hadashay, masjidka waxaa dhisay sheekh yuusuf maxamed xuseen, wuxuuna u dhisay oo sadaqa loogu bixiyey hooye khadiija. awalan waxaan leenahay ducadaas ayaan raacinayaa, ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u aqbalo. sheekhii masjidka dhisayna waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala cumrigaaga noloshaada adduuniya aakhirab allah kuu barakeeyo. baaraka allahu fiikum. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan u weydiinaynaa inuu ilaahay u naxariisto maama khadiijo, jannaatu firdowsan ilaahay uu geeyo, awlaaddii uu bixisay sadaqaadkaas jaariyada ahna ayagoon ilaahay subxaanahu wa tacaala ajri xasanaad allah ka siiyo. wiilashii dhisayna haddee kuwa dhisi haaya oo wiilashooda iyo wiilashooda kale ay usii dhisahayaan allah ka dhigo. xaqiiqatan waa acmaal fiican oo in lagu dayda mudan. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ku dadaala buu leeyahay camalka wanaagsan, limidli haada falyacmil ilcaamiluun buu leeyahay. taanoo kale ha lagu dayda buu leeyahay dadka markaana maqlaya oo codka naga maqlaya oo meel kasta ay joogaan. waxaan marka u sheegaynaa inay ku daydaan. arrintan waa arrin hadda culub nagu ah oo weli arkin, inay arrintan ku daydaan oo ay dadaalkan sameeyaan oo sidii waalidkood ay wax ugu soo bixin lahaayeen ay ugu soo bixiyaan camalka wanaagsan oo wiilashan walaalaha naga ah oo culummada ah ay sameeyeen. ha lagu soo sheega lagu soo dayda baan leenahay insha allahu tacaala. waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala qabriga ha u waasiciyo, ilaahay subxaana wa tacaala qabriga ha u waasiciyo, ilaahay subxaana wa tacaala qabrigeeda ha ka dhiga beeraha jannada ka mid ah, ilaahay subxaana wa tacaala qabrigeeda ha ka yeela beeraha jannada ka mid ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala sadaqadan jaariyada midaan ka goyn ilaahay subxana wa tacaala ha ka dhigo. intii xasuusatay ee awlaaddeeda ahayd ama eheladeeda ahayd ee ka tagtay ee sida wanaagsan usoo barbaarisana iyagana ilaahay subxaana wa tacaala kuwa mar kasta magacooda iyo aahaartooda ay jirta ilahay subxana wa tacaala ha ka dhigo. ilaahay subxana wa tacaala waxaan u weydiinayaa dhammaanteed maama khadiijo iyo awlaaddeedii waxaan weydiinaya jannat alfirdows alacla inuu ilaahay subxana wa tacaala ku karaameeyo. insha allahu tacaala dhammaanteen waxay naga mudan tahay waa hooye inta hadda meeshaan fadhido wixii 30 ka yar iyo ka weynba inay dhashay waa la shaki la'aan